waxay ahaayeen 10 dhalinyaro ah, saaxiibo ah, qaarkood wada dhasheen, isku xaafad ku soo koray. mid ka mida galbaha waxay soo wada ciyaareen kubad, waa ay soo wada tukadeen, kadibna waxay isku soo shubeen maqaayadda saddexda geed ee degmada Shangaani si ay shaah uga cabaan. taariikhdu waxay ahayd 3 bishii Abriil 2021. runtii maalin aad u xanuun badan ay ahayd. saacadana waxay ahayd agaarkii markii salaada maqrib aan kasoo baxnay, anakoo salaad soo tukanay waxaa soo fadhiisanay meel yar oo maqaayad banaan ku taalo oo shaaha lagu cabo. saadiq maxamed yuusuf oo 26 sano jir ah iyo walaalkiis cabdi maalik waxay ka mid ahaayeen dhalinyaradaasi. markii ay soo gaareen maqaayadda waxaa ka dhacay weerar aan kala sooc lahayn oo uu geystay qof isa soo miidaamiyey. wax yar markaa fadhina wada qado oo shaahinana loo keenay. runtii waxaanan weligeena arkin qof soo miidaamiyaa lasoo dhexgalay. hal mar anaka dhan waxaa ka war helna waa dareemi kartaa, yacni wax fajace, dhawaaq aada xoogan, dhimbilo, yacni wax iftiin guduud eh, ilaa dhallinyaradii ay kala ordeen oo qof walba dee dhinac ugu dhawaayo oo u orday maadaama wax kaaga dhaceen. marka alxamdulilah dee wixii meesha ka dhici karaa ka dhacay. dad badanaa meesha ku dhinteen, anakoo kaleo dhowr ahaa ku dhaawacanay. waa arrin iska adagoo runtii laga sheekeyn karin oo musiibe ahayd. alxamdulilah laakiin allahu raxmada kolley dhallinyaradii ku dhimatay oo ka mid ahaa walaalkaygii la dhashay iyo dhalinyaro kaloo aad saaxiiba unahay. meeshii aad fadhideen sawiriga si qofkani markuu yimid miyaad u jeedeen xagee buu ka yimid, maxaa ka muuqday, miyaad ka shakideen mise qof aad garanayseen buu ahaa? bal sharaxadigasi. wallaahi may, aniga ugu dambeeyey iyo wiil kaloo saaxiibkayga Ibraahim la dhaho. dhalinyarada kale wayba naga soo hormareen. waxaa xasuustaa markaas inaa soo maray dhalinyaro kaloo ayaga nala socdeen. waxay dheen joogi karna waa baxeena. ani iyo mid saaxiibkay, wiil saaxiibkay ahaa Ibraahim lagu magacaabo, waa soo baxnay. dhalinyarada salaamiga keenne, bajaajaa soo saarnay. inta bajaajta ka horne wiilkii la dhashay waxaa ku dhahay, waxaan ku xasuustaa cabdimaari allahu raxmadi, waxaa dhahniyo wiilkaa baxaya siiraac. markaasuu wuxuu igu dhahay 15 daqiiqo camal aa joogaa insha allah, waana shaaha cabaa kadib aa baxaayo dhahay. kulli qadartiisa ahayd inuu meesha sii joogo. qarax markuu ituuro ma sii ordin, isla markii baa soo laabtay. markaa soo laabtana meydadkii walaalkii ugu horeeya arkay iyo wiilal kaloo aad saaxiiba una allahu raxmado ilaafaana ugu horeeyo. dhalinyaro kaloo saaxiibanahay. runtii wax aad u adag oo sheekeynteeda dheh xanuun badan waaye. weerarka waxaa markiiba sheegtay ururka al-shabaab. waxa uu ahaa mid ka mida weerarada ismiidaaminta ay geysteen dadka jirkooda ku soo xiray jaakadaha qarxa. qaraxyada iyo weerarada kale ee ay geysanayaan ururka al-shabaab waxaa ku dhimanaya mustaqbalkii waddanka, ubaxii waddanka, hogaamiyaashii waddanka. weerarkii maqaayadda saddexda geed waxaa ku dhintay cabdimaalik maxamuud yuusuf oo 20 sano jir ahaa, maxamed deeqsane oo 22 sano jir ahaa, cabdikhadar maxamed iyo yaasiin xaaji oo labaduba ahaa 24 sano jir, iyo ismaaciil xasan maxamed oo 26 sano jir ahaa. waxaa kaloo ku dhintay qaraxaasi 5 qof oo kale oo ka mid ahaa dadkii maqaayadda ku sugnaa. al-shabaab dhinacooda waxay sheegteen inay weerarkaasi ku dileen 15 qof oo askar ah oo isugu jira booliis, dhar cad iyo shaqaale ka tirsan dowladda. sharmaarka maxamed warsame waa agaasimaha telefishinka qaranka. 20kii bishii November ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa isaga iyo saaxiibkiis cabdicasiis maxamuud afrika, agaasimihii radio muqdisho, ay ka soo baxeen maqaayad laga cunteeyo oo ku taala degmada Boondheere. maqaayadaasna 2 bilood ugu dambeysay waxaan ka ahayn customer caadi ah, waayo maqaayadu waxay ku taalay meel aadmi ah oo Afrika dhinac ciidan jagboonti ciidan booliis ay joogaan. kalsooni badan oo aan ku qabnay. habeenkaas si cajiiba iyo waqtiga awlka hore saacad iyo wax ka badan aan joogi jirnay, laakiin degdega dhiigga baxay awgeed 10 ilaa 15 daqiiqo anigaanu ma cashayn. cabdicasiis iyo yarka ayaa casheeyeen. markaan baxnay waxaan gaariga inta uu maqaayadda gudaheeda ku jiray uu noo baakinaa. markii gaarigaa baabka nala ka furay oo gaariga uu reebkiis u baxay, waxaan dareemay wax sidii oo hilaac oo kale ah. waxaan lay hor keenay ama lay tusay, allah u naxariistee, walaalkay
muddo gaaban gudaheed mas-uuliyiintu waxay xaqiijiyeen geerida allaha u naxariistee cabdulcasiis maxamuud afrika. al-shabaab waxay markiiba sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay weriye cabdulcasiis afrika. waxay kaloo sheegteen in dilkaasi uu aargoosi u ahaa dil ay dowladda soomaaliya u geysatay xasan xanafi xaaji oo horey u ahaa weriye ku biira ururka al-shabaab laguna helay inuu qorsheeyey dilka suxufiyiin. qaraxa kadib waxaa goobta soo gaaray shaqaalaha gurmadka oo halkaasi ka qaaday sharmaarke maxamed warsame oo si xun ugu dhaawacmay weerarkaasi, halka xaaladda caafimaad ee cabdulcasiis afrika ay taagnayd qoos. kadib waxna ma arag, maqal keliyaan maqlay. waxaan iigu horreysay oon maqlay dadka oo ambalasta ka shaqeeya gaariga gurmadka degdega oo ileh waa dhaawacan tahay, dhaawac culusa kugu jira ku gaaray, waa dhaawacan tahay, waa dhibaxisa. waxaan dhahay nihow mana dhaawacnay, waxna ma qabe codka. intaa markii codkaygana waa sii dhumayay, waayo halbowlahaaga ay xididka codka qaaday ayuu ahaa oo kontarool ah, aadna waa u dhugbaxay. kabacdi goormaad soo miyirsatay ood aragtay dhaawaca ku gaadhay, wixii dhacayna aad si buuxda aad uga warheshay? haarunow, isbitaalka waxaa la geeyey madiino. markii madiino la geeyey 4 saac ugu dambeysay ugu horreysay, xitaa dhakhaatiirtu nolol ahaan ma saacdinin, sababtoo ah keliyahana waxay joojiyeen shaqada, halbowlona waa goonaa, oxygenkaygana waa dhacay, bareesharkaygana waa dhacay. markaan marxalado isku geedaaman oo beri u eg ayaa igu weydaaneed, laakiin waxyaabaha ilaahay igu nimcay waxaa ka mid ahaa xasuusta igama tegin. al-shabaab waxay qaraxyadan u adeegsadaan maadooyin kiimika ah, masaabiir iyo biro la jarjaray oo ay ugu talagaleen in dadka ay beegsanayaan xataa haddii ay ka badbaadaan weerarka ay ku naafoobaan. sharmaarke maxamed warsame dhaawaca soo gaaray waxa uu ogaan doonaa 6 maalmood kadib markii uu weerarku dhacay, isaga oo ku sugan cisbitaal ku yaala dalka Turkiga. jirkaygaan fiiriyey, gacanteeda bidixda meel yar muruqa qeyb yar oo ka mid ah ayaa hartay, iyo calcaasha ayaa hilib ku aray, iyo qaybta hoose. qaybtoo kale waxaa muuqday lafihii, siyaadihii iyo muuqday. jilibkayga bidixda saasoo kale, midigta saasoo kale, daanku ay jabnaa oo afkaysuma imaaneyn, gacanteeda midigta way gubneed. aniga oo dhan ma la sheekeyn karin, waana ilaah maadiis waxaabii in ay safaafeen sawiradaas, waayo waxay ahaayeen wax argagax leh. mararka qaar aniga ayaa waa ka shikinaya waxaana inay gacanteed tahay iyo in kale ayaan ka shikinaya mararka qaar. laakiin alxamdulilah, ogaalka oo aynaga tegaynin darteed iyo imaanka oo ilaahay igu nimceeyey, salaadeedana waan tukanayay, waana aaminay. waxaan wax dhahay inay tahay kullu shayan maktuuban cinda allah, xagga ilaahay wax ka yimi oo dhacay inay tahay. waxaa khubarada amnigu aaminsan yihiin inay qaraxyada jaakadaha ee xilligan ay adeegsadaan ururka al-shabaab ay dhibaato ka geysan karaan 60 ilaa 70 mitir oo isku wareeg ah. sidoo kale khasaaraha ay geystaan waxa uu ku halis badan yahay dadka taagan marka loo eego kuwa fadhiya, maadaama jaakaduhu ku xiran yihiin qaybta sare ee qofka weerarka geysanaya. weerarada ay al-shabaab u adeegsadaan dadka xiran jaakadaha qarxa ayaa si weyn u soo xoogeystay tan iyo 2019. booliiska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen 13 qarax oo nooca ismiidaaminta ah ee qofku isku soo xiro jaakad qaraxda inay dhaceen sanadkii hore 2021. waxaa sidoo kale booliisku ay diiwaan geliyeen tiro intaasi leeg oo ah qaraxyada baabuurta uu wado qof ismiidaamiye ah. macadka daraasaadka amniga ee Hiral Institute waxay iyaguna diiwaan geliyeen tiro taasi la mid ah. taasi marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay 2020, waxaa Hiral Institute ay diiwaan geliyeen 11 ah qaraxyada uu qofku isku soo xiro jaakadaha qarxa, halka qaraxyada baabuurta uu wado qof isa soo miidaamiyey ay ahaayeen sanadkii 2020 14 qarax. qaraxyadani waxay galaafteen nolosha 10 kun oo Soomaali ah oo aan waxba galabsan. booliiska Soomaaliya waxay diiwaan geliyeen in kooxaha xag jirka ay dileen 625 qof, halka dhaawacyada ay sababeen ay dhan yihiin 611 qof. qaraxyada ka dhacay miinooyinka la aasay iyo kuwa baabuurta lagu dhajiyo waxay ahaayeen sanadkii hore 89 qarax,
halka bamgacmeedyada la tuurayna ay ahaayeen 54. waxaa intaasi la socday 9 weerar oo loo adeegsaday hoobiyeyaal. gaashaanle cabdifataax aadan xasan waa afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya. waxa uu galka baarista u sheegay in sababta al-shabaab ay u bedeshay xeesheeda ee ay u badisay dadka lagu soo xirayo jaakadaha qarxa ay ka timid farsamooyinkii kale ee ay wax ku qarxin jireen oo yaraaday kadib tallaabooyin ay qaadeen ciidamada amniga. sanadkii la soo dhaafay laanta la dagaalanka waxyaabaha qarxa ee hay-adaha kala duwan ee amniga oo howlgal dheer sameeyey awgeed waxaa yaraaday iyo xooraanka iyo la dagaalanka cadowgoo la badiyey awgii waxaa yaraaday baabuurtii lagu dhejin jiray waxyaabaha qarxa. waxaa sidoo kale la badiyey jagbontiyada magaalada muqdisho oo iyadana markii jagbontiyada la badiyey waxaa yaraaday baabuurtii meelaha la baakimi jiray laga tegi jiray. waxaa sidoo kale qayb muhiima ka qaatay wacyigelinta bulshada ay u sameeyeen kooxaha la dagaalanka waxyaabaha qarxa oo awareness badan sameeyey oo u sheegay dadka haddaada gaariga garanayn inaad ka fogaato, bir ama shay aada garanayn haddaad aragtana inaad ka fogaato, bac ama waxaad ka shakisay boorso haddaad aragtana inaad ka fogaato. taasna waxay sabab u gelisay in lagu guulaysan waayo in gaari meel la dhigo la baakimo. markay ku guulaysan waayeen kooxaha nabaddiidka haddana waxay sameeyeen in gaariga iyo personal lasoo wado shaksi isnidaaminaya gaariga ku dhex jira oo xawaaro kusoo dhaafa jagbontiyadii. marka jagbontiyadii tacticadii lala bedelay la aaday qorshooyin ammaan oo ka duwantoodii lala yimidna haddana way u suurtageli weysay baabuurtii inay dhaqaajiyaan. shaksigii ismiidaamin jiray oo ogol dadka shiraya ama dadka xalfadda lasoo dhexgeli jira haddana waxaa loo bedelay in shaksigu naftirkiis uu noqdo yani shaksi move samayn kara, dhaqaaq samayn kara oo baabuurka bursan kara, sida qaraxyadii ugu dambeeyey oo hadda sanadkii ugu dambeeyey dhacayay oo personal bamka ahaa. allah u naxariiste ugu horeeyo agaasimihii radio muqdisho allah u naxariiste abdis africa, iyo kadibna haddana abaha ugu dambeeya qaraxii algaabta ka dhacay oo ninkii rabay gaariga ergadii Soomaaliyeed ee doorashada ka timid oo si nabada kusoo noqotay rabay inuu kusoo uu askari booliis Soomaaliyeed naftiisu ku waayey celinta uu ninkaasi celinayay. laakiin waxaan dareemaynaa marka laga soo tago cadowga oo asagana sidaad u fikiraysa u fikirayo, marka laga soo tago ciidamada ammaanka oo helay xirfad kala duwan, tababaro kala duwan iyo tactica kala duwan iyo aqoonta caalamka taaloodna soo gaartay, waxaana hadda aad u naaqusay qaraxyada. waxayna suuragal u noqon weysay in gaaridii ogol laga soo buuxin jiray gobolada shabeellooyinka oo loo soo qaadi jiray muqdisho inay soo geli waayaan ay u sahlanaa weyso foojignaanta iyo dadaalka ciidamada amniga awgeed. waayi waad ku mahadsan tahay guud marka aad siisay. maxay tahay sababta booliisku marka ay ula iman waayeen istaraatiijiyo ama waxay ku ogaadaan ama uga hortagaan dadkan jaakadaha isku soo xiraya ee isqarxinaya? waa mahadsan tahay haarun. horta ma jirto kulla nafsin daa'iqatilmowt weeyaan sida aayaadka allaba uu ku bayaanshay. ma jiro shaksi dhimasho soo aaday cilmi loogu hortegi kara mise aqoon loogu hortegi karo la barta ma jirto. ninka hadduu dhimasho soo aaday waa meeshii ugu dambaysay. keliya dhimashaa lagu celin karaa. waa sababta askariga booliiska Soomaaliyeed shaksigaas miinada ku xirneed ee ku cararaya baabuurta ergadoo socota asagana intii ku cararay iskugu dhigay weeyaan. annaguna waxaan diyaaruna dhimashaa looga hortagaayo hadda maraysaayo cilmi loo baran karaa oo lagu difaaci karaa ma jirto. laakiin waxaa jira wax la yidhaahdo prevention ama kahortagaasoo ah horta qaraxa naftirkiisa inaan laysku keeninba, in la helo budadii, in la helo detonatorkii, in la helo containerkii, in la helo baterigii, inaan laysku keenin in laga shaqeeyo. marka waxay keliya tahay haddii shaksi dhimasho soo aaday miina isku soo xiray in la celiyo la rabaa inaad adna ogolaato inaad dhimato. taasna ciidanka booliiska Soomaaliyeed si baratic ana horey u sameeyeen. mar koowaadna ma aha, mar labaadna ma aha, mar saddexaadna ma ahan. askari booliis Soomaaliyeed ee gaari qarxi raba isku dhiga ama kii baarlamaanka geli rabay oo allah u naxariistay Cornel Daahir Gurxan isku dhigay, kii doorashadii ka horeysay madaxweynaha iskool buluusi askariga booliiska isku duubay oo ku dhintay, kii hadda ugu dambeeyey. intaasoo dhan waxay ku muujinayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed haddayba nafta hureen wax ka dambeeyo cilmiga la barta inaysan jirin qarax loogu hortago ay tahay keliya nafur keliya loogu hortegi karaa. nafurka rasmigaana waa midka ay samaynayaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. taas ayaana ku cadaynaysa. laakiin annaga booliiska Soomaaliyeed maxaa ugu hortegi la-adin hay weydiinin. waxaa ku qanci kartaa inaan ka hortagoyna in nin qarax ku xiran yaha aan isku duubno meel ka dambaysa ma jirta. haarun adigana waa dareemi kartaa.
sharmaarka maxamed warsame agaasimaha telefishinka qaranka oo weli ka soo kabanaya dhaawacii cuslaa ee soo gaaray ayaan weydiiyey waxa laga baran karo masiibooyinkan iyo sida looga hortegi karo. managa waxaa la gaaray waxaa ka xun waxaa gaaray hooyada dhashay ee loo sheegay haddii hooyada la dhaho wiilkaaga qof dilay xeer qabiil ayaa lagu xalayaayo ama diyaa laga bixinaya ama waa dilaya ama la finaya diintaaba qabta laakiin hooyada leeday wiilkaaga isqarxiyey wallahi aad baan dareenkeeda uga naxsanahay siduu noqonayo. laakiin waxaan leeyahay haar wiilkaas da'aadeeda ah ee isqarxiyey ee lagu qancay inuu isqarxiyo qof ficiisa ku qarxiyey war dhimo oo googo aniga haddii maqlay waxaan dhihi lahaa jannadii ma joogtaa oo raacayntii ma heshay oo nebi maxamed iyo abubakar sidiiq iyo macooda ma tahay bise khabriga ayaa ku cadaaban tahay oo jirib ku jirta waxyaabaha cajiibka ah war jannada uu ku soo diray caldheere iyo dadka lamid ah iyaga may isqarxiyaan. marka dhalinyarada soomaaliyeed waxaan leeyahay dhiigaaga nina darajo ku helaa nin lacag ku helaa janno kuu ballan qaadi karta ma laha. walaalkii cabdicasiis waxaan ku faraxsanahay in isagoo isku yaalla janaase lagu tukaday si sharafa qabriga loo dhigay laakiin ninka isqarxiyey wejigiisa keliya ayaa la helay. nin walbo isqarxiyana wejigiisa keliya la helaa waayo ilaahay wuu fadeexeynayaa oo adduunkuna wuu ku fidixiyey qof walba wuxuu leey waa kaas wejigiisa balaayada isqarxisa waxaan janno ma aha. janno calleer uu gacanta ku hayana janno ma aha. waxaa laga baran karaa midda kale al-shabaab 1,000 iyo 2,000 iyo 1 milyan deeyiin haddii shacabka soomaaliyeed isku dubiyiin isaga qaban karaan. gobolladii degmooyinka qaar waxay al-shabaab wax uga sameelayeen dadkooda fuljigan dadka reer muqdisho waa weli ciddii doonta iskaga dawaalad. khubarada amnigu waxay aaminsan yihiin in maleeshiyada al-shabaab weerarada ay geysanayaan ay ka faa'iidaysanayaan indhaha booliiska iyo ciidamada amniga oo aan xilligan ku soo wada jeedin la dagaalankooda doorashada socota awgeed. waxay kaloo khubaradu sheegeen inaan la baarin dadka la socda baabuurta ee soo geliya magaalada waxayna intaas ku dareen inay si dhib yar uga soo gudbaan baraha kontaroolada islamarkaana ay ku dhex socon karaan magaalada iyagoo aan meelna lagu joojin maadaama aysan ka duwanayn dadweynaha kale ee lugeynaya hareeraha waddooyinka. waxayna si dhib yar ku tegi karaan hoteelada goobaha la fadhiisto ama maqaayadaha ay dadku ku xoonsan yihiin. khubaradu waxay aaminsan yihiin in ciidanka booliisku uu u baahan yahay sirdoon sarreeya oo la socda abaabulka weeraradan iyo inay mar walba feejignaadaan. waxay sidoo kale khubarada amnigu sheegeen in loo baahan yahay isku xirnaan intan ka sarraysa oo ay yeeshaan laamaha amnigu iyo in ciidanka la siiyo tasiilaad. waxay sidoo kale khubaradu sheegeen in loo baahan yahay in dadka sheegta inay ka soo baxeen ururka al-shabaab la xareeyo oo aan loo ogolaanin inay dariiqyada iyo maqaayadaha iska fadhiistaan. qaraxyada al-shabaab ayaa badankooda lagu soo diyaariyaa gobollada jubbooyinka iyo shabeellada hoose. khubaradu waxay aaminsan yihiin inay al-shabaab jaakadaha ka soo geliyaan magaalada muqdisho inta u dhaxaysa degmooyinka afgooye iyo balcad nawaaxigaasi oo la aaminsan yahay in roondada ciidanku aysan mar walba taagnayn. sidoo kale waxay khubaradu aaminsan yihiin in al-shabaab ay adeegsadaan mootooyinka si ay magaalada muqdisho u soo geliyaan jaakadaha qarxa. ciidanka booliiska soomaaliya waxay dhinacooda sheegeen inay intii karaankooda ah ka hortagaan weerarada. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. intaaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo.